rabbiyow adigaan ku barino ugu naaloonayna gabar ayaa baadiye ku noolayd reer caruur yaryar oo agoonana waa ay haysatay markaas ayaa beertii waxa uu yimi haamaday ama qabow daran oo dabayl wata markaas uu beertii dhammaanteed baabi'iyay markii ay dadkii ogaadeen warkaas aan fiicnayn in reerkaasi ku dhacay ayay u yimaadeen oo ugu tacsiideeyeen dhibaatada gaartay reerkaasi iyada iyo caruurteeda gabadhii ayaa ducaysatay oo tiri intay gacmaha kor u taagtay oo samada eegtay rabbow adigaan arsaaqi jiray rajadayda dhinacaagay jirtaa iyo didiiladayda iyo naaloodkeennaba waajihadaada adigaa weligaan arsaaqi jiray yaa rabbi maxaa dhacay dabadeed waxaa warkii haamadayga loogu warramay nin xoolo badan lahaa markaasuu u yimi oo uu ku yidhi waan maqlay dhibaatada idin gaartay ee iga gadoon xoolahan wuxuu u dhiibay 500 oo diinaar waa xoolo aad u fara badan markaasay haddana waxa ay bilowday gabadhii inay ilaahay ugu shukri noqdo sida uu ugu soo dedejiyey farajka oo uu ugu fayday dhibaatadii iyo warwarkii xigmadani ama qisadani waxa ay ina faraysaa in aynu ilaahay ku kalsoonaano oo ku xirnaano oo barino waqtiga adag una shukri noqono waqtiga nimcada iyo barwaaqada uu ilaahay subxaanahu wa ta'aala na siiyay